Israa'iil waxa ay sheegtay in duqeynta aadka u ba'an ee Iiraan ay soo qaaday kuna burburisay goobo ay ka jawaabi doonto. Magaaladii Haifa waxaa la sheegay in inta badan goobihii shidaalka iyo goobo istiraatiiji ay shuf beeleen khasaare aad u xooggan uu gaaray. Taliyaha ciidanka ilaalada kacaanka ee dhinaca cirka hadeerta idman siyahayaha xilka ayaa sheegay in balantii saddexaad ee howlgalka weli lagu guda jiro, wuxuuna ku tilmaamay in weerarkoodu uu yahay mid loogu talagalay in la fuliyo dhammaanba. Wuxuu yidhi waxyaalihii horey loogu ballan qaaday shacabka waddanka Iiraan. Israa'iil hadeerta waxay sheegaysaa in ay saacadan iyo wixii ka dambeeya dib u furi doonto dugsiyada dhinaca difaaca ee dadka loogu talagalay shelterska, meelaha dadku ay ku gambarayeen, isla markaana ay dadka u ogolaan doonto in qaarkood ay guryahooda seexdaan maadaama habeenkii saddexaad ay dadku ay guryahooda ay ka maqan yihiin qaarkood ama laga soo didiyey oo laga soo saaray malaayiin qof. Militariga Iiraan waxa ay sheegeen in weerarkan ugu dambeeya uusan yahay waxay ugu yeedheen shixnadaha dhinaca hubka iyo duqeynta ee Israa'iil ay mutaysatay, taasoo ay la ciqaabo. Iiraan waxa ay sheegtay inay weerar aad u xooggan oo Israa'iil ay soo qaaday ay ku dhufatay meel dad rayid ay degan yihiin oo ah apartmentooyin ay dadka raydka ay degan yihiin, isla markaana ay dad ku dhinteen dadna ku dhaawacmeen. Israa'iil hadeerta ma aysan sheegin khasaaraha dhimasho ee weerarada hadeerta soconaya weli ay markaasi laranayaan, laakiin marka la fiiriyo sida ay markaasi u dhacayaan falaaraha dhinaca duqeymaha waxaa caddaatay in dhinaca air superiority ama awooddii dhinaca cirka defenses iyo Iron Dome-ki Israa'iil uu gebi ahaanba uusan shaqeynaynin, waxna uusan qabanaynin. Israa'iil hadeerta lama odhan karo maanta as we speak lama dhihi karo wadanka ugu awoodda badan dhinaca cirka ee bariga dhexe, lama dhihi karo absolutely, sababtoo ah waxay ku guuldareystay inay xitaa boqolkiiba waxaa la yidhi ay konton qabato gantaalaha. waxaan aaminsan boqolkiiba 70 in ka badan ay ka baxsadeen. taas waxay ka dhigan tahay in gantaalahaasi haddii ay precisiskoodu u badnaa lahaa oo cruise missiles ay ku jiri lahaayeen ama ay intercontinentalka ay ku jiri lahaayeen inay dhali lahayd ama ay dhalinayso haddii dhulka lasoo isticmaalo wax ka daran waxaa deerta muuqda. dhinaca kale Israa'iil waxa ay sheegtay inay aragtay droniski ugu badnaa ee taariikhda ee hal mar lagu soo weeraro, ayna ku tilmaantay in qaarkood ay yihiin kuwa kamikaska, kuwa markaasi dronka isqarxiya oo aad iyo aad u daran. dhinaca kalena waxaa lagu tilmaamay in weerarka lagu soo qaaday Israa'iil gaar ahaan goobaha istiraatiijiga iyo goobaha markaasi kanshooyinka waaweyn laga doonayay in ay noqdaan baa layidhi kuwo isbedel aad u xooggan keena. Iiraan dhinaca badda dhaqdhaqaaqeeda waxaa la filayaa inay maalinimada bilowdo. badda dagaalkeedu waa maalinimada, gaar ahaan marka aad rabtid maraakiib aad soo dirto, waayo habeenkii haddaad maraakiibta habeenkii soo dirto waa bartamameed in la bartamansado aad u fudaanaysa, sababtoo ah habeenkii waa in layd la daartaa si uu markabku u socosogana ilaaliyo meelahaan loogu talagelin. baddu ay dhagxaanta ku leedahay, meelaha ay ku leedahay tusaale ahaan haddii ay jirto ice ama wax loo yaqaano uu jiro baraf uu fadhiyo, sida layd bal baahan tahay. ile markabku waa sida gaari oo kale oo soconaya moogti, saad uga leexato dee doomaha kale iyo maraakiibta kale badda ku jira ayaguna. sidaa daraaddeed waxaa la filayaa salaada subax mar dhow marka waagu beryo haddii alla idmo in ay dhaqdhaqaaqaasu bilowdo haddii u bilaabanay. haddii marka Iiraan ay bilowdo dhaqdhaqaaqa dhinaca badda waxay u ekaanaysaa in gebi ahaanba ay taasi ka dhigantay ayaa layidhi weerar aad u xooggan. hadeerto magaaladan ay gantaalahan ku daadanayaan sida muuqata waa Quds, meeshaan hadda katana ku socda waa Quds, waana hadeerta waana life qaybta waxa weeye Israa'iil ay qabsatay ee loo yaqaano qaybta markaasi galbeed ee magaalada Qudus oo ay dhulka Israa'iiliyiintu ay sida xoogga ay ku haystaan kuna qabsadeen. Israa'iil militarigooduna waxay sheegeen in qaar ka mid ah gantaalaha ka hortageen dhinaca Qudus oo ay u aqoonsatay Israa'iil inay tahay magaalada caasimada Mareykankana oo xilli muddaxileedkii hore ee Donald Trump loo aqoonsaday. laakiin Israa'iil waxay sheegtay erey ay u isticmaashay Iiraan isla ereygaas oo kale inay isticmaashay markii la weydiiyey mid ka mid ah saraakiisha Israa'iil oo la yidhi ma runbaa in a fresh follies yani in yani waa raxan baan dhihi karnaa gantaala ah oo markaas raxan ka badan. absolute raxantu waa wax 10 ilaa iyo wax 20 ka yar baa la dhihi karaa raxanta, laakiinse waxaa la dhihi karaa exactly oo dadka qaarkood waxay dhahaan wax ka yar 10 qolo walba say u isticmaasho. waxaa la dhihi karaa markaa xidhmo dhan oo laakiin yani daraasiin ah boqolaal ah oo gantaalo iyo walaxo isku dhafan waa xaqiiq ay yiraahdeen. waxaana yiraahdeen waxay ku kala dhaceen intooda badani magaalooyinka Haifa iyo magaalada Tel Aviv qaybo ka mid ah iyo sidoo kale magaalada Jerusalem. Israa'iil ay u taqaano Qudus inay tahay markaasi meel barakaysan, dabcan ay tahay meel ayagu ay
ay dabcan caasimad u ah ay isku aqoonsatay ama qaarkood wadamada qaarkoodna ay yeeleen gaar ahaan Maraykan. Dhanka kale warbaahinta dalka Iran waxa ay sheegeen in howlgalkan uu yahay mid ballaaran. Israa'iil dhinaca kale waxay isku qaaday sida warku ay sheegayaan dhinaca wadanka Yemen. Israa'iil sababta Yemen u weerartay iyo khasaaraha geysatay waa kala labo. Horta sababta u weerartay Iran Israa'iil ay weerartay Yemen waxa weeye in ay muujiso inay dhowr garjaho weerar geli karto. Marka laba diyaaradood oo loo diray Yemen oo weerar gaadbaad ku soo qaadeen soo noqday. Macnaheedu maaha in Israa'iil ay haysato baaxad weerar oo la mid ah kii 1968 ay ku qaaday wadamada Carabta oo kale. Sababtoo ah waxa weeye waagaasi wadamada Carabta ma aysan lahayn hanaanka tiknoolajiyada oo kale. Maanta markaykiis waxay rabtaa inay fariimo dirto maadaama dagaalkii ay ku qaaday Iran natiijadii ay kala hayd ay yeelo weyday sideedii noqon weyday. Sababta waxa weeye Iran waxay doonaysay in the control and command Iran uu lumo markay saraakiil dhowr ay ka dishay. laakiin waxaa la ogaaday inaguna aynu ogeeno khibradda aynu lahayn oon idiin sheegay day oneba ayadoo dadkoo dhan leeyihin Iran waa burburtay Iran waa ku daysay yacni inay Iran aysan ama waxa u noqotay Iran 500 ku dhowaad oo sarkaal bay leedahay 200 waa janaamo sidaa daraadeed 10 qof oo la dilay iyo 20 qof oo la dilay macna weyn saamayso sababtoo ah khibradda haddii la yidhahdo khibradda haddii la yidhahdo khibraddu maanta inta badan sarkaalku hadduu tababaran yahay sarkaal janana uu gaarsiisan yahay khibraddu waaba technology maanta khibrad weyn oo maanta odaybaa igala dhintay dagaaladan yarar ee dhulka ka dhacaya maaha waxaan dagaalada waa dagaal professional waana dagaal teknolojiyadana rag dhalinyarada gacanta ku haya planninga iyo qorshayaashuna bir horaa la qoray wuxuu waa dal jabhad maaha dad badan ka xarba arrinta inaan ka soxo jabhadaha ayaan qoraalkooda nin kula dhiman karaa ama qoraal iyo kayd lahayn dhammaan culunta militariga iyo haddii ay Iran doonayso inay iska difaacdo ayadoo documentary ah ayadoo videos ah ayadoo workshops amal ahaan loogu ayadoo storage ah baa la hayaa crowdinga ku jirta kaydka ciidanka dhinaca xogta taala marka waxa iyo shax haday tahay haday maabin tahay haday halkaas tahay laakiin baa igala dhintay meesha tay xisbullah oo kale maaha oo maartin uu kaligii jabhadu waxay soo kale ku duwan yihiin khibradda inta badan hogaamiyuhu ma daadajiyo sababtoo ah inuu meesha haysto doonaya ilaa ninka jabhada haystaa waa nin isaga kaligii raba inuu jabhada waliga leeyahay haysto oo xukuntoona laakiin saraakiishan militariga awal baa iyagu military bay ahayd kumanaan kun oo kale oo khibradii haya oo xogtii haya oo dokumentiyadii haya oo sawaariikhdii haya oo secretkii haya oo qaanuunkii dagaalka haya oo senioritigii iyo disciplinekii ciidanka yaqaanaa jira marka this yes waa damage ciidanka inuu gaaro in saraakiisha ciidanka ay dhintaan waa damage waa run laakiinse tanoo kale marka Iran sidoo kale tahay in dad inta la gaado la dilo afaafka dagaalka dil lagu dilo ayay ka xanuun badnaa lahay ama la qaba lahaa ama sarkaalka cutubyo ciidana wareejinaya la dili lahaa dad dagaal ku jira dad guryahooda joogo oo la gaaday oo la dilay madaxweynaha la gaadi kara la dili kara tobanaan dalba madaxweynaashooda la dilay waxba aysan noqonin Mareykanka madaxweynihiisa la dilay Soomaaliya madaxweynihiisa la dilay Iran madaxweynihiisa waa laabsay in la shaqoolo la dilay sanad ka hor aynu ogeyn waxba uusan wadanka u noqonin sidaa daraadeed arrintaasi arrin yani way tahay in dadka la sugo amnigooda laakiinse arrin saameyn xoogan yeelan noqdo tama marka Israa'iil hadarta waxay sheegtay in ay yaban sarkaal kamid ah saraakiisha ururka Xuutiyiinta oo Mareykanku Iran proxy ugu yeeray ay dileen ay cadaysay ama ay sheegaysaa laakiin ururka Xuutiyiinta ilaa darto kamaysan hadal Xuutiyiintuna dhankooda waxa laga sugayaa war si marka isku soo tuutuubo marka la sheego Israa'iil wali waxa ku soconaya si la amsiyay Iran dagaalku laakiinse wuxuu si biri waagu markuu bariyo runtii dagaalkaas haduu gaaro maalinta saalisada oo biri oo axad ah iyo maalinta isniinta oo sii socdo oo saalisada gaaro dagaal weyn buu noqonayaa boqolkiiba aniga khilaata aan bixi karo 70 boqol weyn 30% oo opportunity ama chances oo laga afford karo dagaal confessional widespread and war oo dalalkana ku lug yeeshaan ayaa la haystaa